Assalaamu calaykum. Haddii lagu weydiin lahaa baalada ugu halista badan dunida maxaad odhan lahayd? Libaaxa, shabeelka, yaxaaska? Haa, waa saxan tahay dabcan. Waa halis dhammaantood. Balse muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa bahala kale oo iyana aad iyo aad u halis badan dilaana ah. Haddii ay tahay markii ugu horeysay ee soo booqata janaalkan, fadlan taabac calaamadda subscribe-ta si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga ee aan idin soo gudbin doono. Black Mamba waa mid ka mid ah bahalada loogu cabsi badan yahay dunida. Hoyga bahala galeenka ee Afrika ayaa laga helaa maskan. Wuxuu caan ku yahay inuu yahay mid dagaal badan, aadna u orod badan. Wuxuu weerari karaa qof walba oo u jiro masaafo dhan 40 mitir. Wuxuu sababay dhimashada dad badan. Maskan ayaa adduunka looga tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah masaska ugu halista badan dunida. Maskan dhererkiisu badanaa waa 2.6 mitir, halka midkiisa ugu dheerna uu yahay 4.2 mitir. Maskan ayaa ah maska ugu orodka badan dunida. Xawaarihiisu wuxuu gaarayaa 20 kiilomitir saacadiiba. Markuu qof weerarayo, wuxuu kor u qaadaa madaxiisa, kaasoo qofka u weerara weji ka weji. Wuxuu leeyahay sun gaaraysa 100 garaam, halka 10 garaam oo sun ah ay ku filan tahay in qofku u dhinto. Qanihiisa waxaa loo yaqaanaa dhunkashadii dhimashada. Maskan dilaaga ah ayaa wuxuu dareemayaa gariir daran, aragga oo ka luma, neefta oo ku adkaata, suuxdin iyo koomo oo ugu dambeys uu u dhinto. haddana isla markiiba laga daweynin, heerka dhimashadiisu waa 100%. Bounds. Komodo dragon kaliya wax ma qaniino, wuxuu cunaa wax walba. Waxaa la aaminsan yahay in baalkan qaniinihiisu aad u halis badan tahay, maxaa yeelay bakteeriyada aadka u badan ee ku jirta gudaha afkiisa. Markay ku qabtaan, way ku qaniinayaan, kadibna waxay kugu sii daynayaan suntooda. Bini'aadamka wuxuu noolaan karaa kaliya hal saac kadib markii uu qaniino bahalkan. Bounds. Jeerta tifiyada iyo baraha bulshada caanka ah waxay soo qaataan muuqaalo kartoon ah oo bahalkan ah si ay u madadaaliyaan daawadayaashooda. Balse bahalkan sidaa ma ahan. Waxay xasida kala soo bixi karaan biyaha si ay u cunaan. Waxay kaloo kula dagaalami karaan dhulka dushiisa, libaaxyada iyo bahalada kale. Waxay weeraraan bini'aadamka xitaa iyaga oo aan maagin. Waxay burburin karaan gawaarida aad wadataan. Waxayna ordi karaan masaafo dhan 51.5 kiilomitir saacadiiba. Jeertu way ka orod badan tahay bini'aadamka. sanad walbana waxay dishaa dad gaaraya 3,000. Bounds. Dhurwaaga walow laga yaabo in bini'aadamku uu iska ilaaliyo xilliga maalinka ah, kadib dhicidda qorraxda waxaa bilaabanaya waqtiga uu ugaarsado dhurwaaga. Culeyskiisu wuxuu ka badan yahay 86 kiiloogaraam, wuxuuna leeyahay qaniinyo jebin karta lafaha bini'aadamka. Caqligooda iyo awoodooda sareysa awgeed laguma guuleysto in la laayo ama la cirib tiro. Qabiilo badan oo Afrikaan ah ayay xoolo tireen dhurwaayadu. Bounds. Stonefish sidaad magaciisa ka aragtid, malaayga dhagaxa uma malaynaysid noole. Wuxuu ku nool yahay qaybta hoose ee biyaha. Malaaygan wuxuu dhererkiisa gaarayaa 30 ilaa 43 sentimitir, halka culeyskiisuna uu ka badan yahay 2 kiilogaraam. Wuxuu ka mid yahay malaayada ugu halista badan dunida. Malaaygan listiisu badan tahay wuxuu sugaa malaayada kale si ay meesha ugu soo dabaashaan ka hor inta uusan af ku ridanin oo uusan ladayn. Uma malaynaysid wax nool, waxayna ku qaadataa muddo ka yar nus second inuu kuu diro laf-dhabartiisa. Waxaad geli doontaa xaalad kama dambeys ah oo quus ah. Malaaygan way adag tahay in la ogaado meesha uu joogo, oo waxaa qariya wax dhagax dul saaran oo kale ah. Bounds. Corn snail wuxuu cuni karaa bahalkan ilaa 20 qof. Bahalkan ayaa cayayaanka iyo bahalada kale ku qaldamaan iyagoo u malaynaya inuusan cuni karin ama caraftiisa awgeed. Kadibna sidaas ayuu u liqaa iyo isagoo kusoo qabsada irbad sun leh oo xanuun badan, isla markaana ku mir daboolinaysa awoodda suntiisa awgeed. Xitaa ma ogaan kartid waxa ku duray. Bounds.
kaneecada waa mid ka mid ah xayawaanada ugu halis badan dunida walow aysan si toos ah u dilin dadka. Waxay xambaarsan tahay boqolaal cudur iyo ku dul noolayaal bakteeriya ah kuwaasoo ku sababi kara inaad dhimato. Cudurrada ugu caansan ee ay sababto kaneecadu waxaa ka mid ah yellow fever, malaria, zika virus iyo dengue. Qiyaastii 725,000 oo qof ayaa u dhinta cudurrada ay keento kaneecadu. Muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. inta ku kulmayna muuqaalkan waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.